afartan wariye oo ka howlgala warbaahinta gobolka Mudug ayaa waxaa loo geystay jirdilkaas ay u geysteen ciidamada unugta socdaalka madaxtooyada Puntland oo markaasi ilaalo u ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayay afarta wariye ee jirdilka ay ciidamada unugta socdaalka madaxtooyada Puntland ay u geysteen ayaa kala ahaa Saciid Cabdullaahi Kulmiye Nadaara Maxamed Cabdicasiis Warsame Iimaan Maxamed Jaamac Said Ali Nuur Cabdi kuwaas oo labadii maalmood ee la soo dhaafay tabinayay wararka ku aadan safarka ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu ku soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib dhacdadaasi fooshaxun ayaa waxaa kulan ay uga arinsanayaan isugu yimid wariyaasha ka howlgala gobolka Mudug intaasi kadib wariyaasha waxa ay guda galeen inay wariyaasha dhibta loo geystay mid uga dhageystaan waxa ay ciidamada u geysteen ayagoona ka warbixiyay wariyaal ah oo ka shaqeynay maalmihii la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wafdiga hogaaminaya ku sugnaa gobolka Mudug booqashooyinka iyo kulamada ay la sameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa jirdil noo geystay ciidamo ka tirsan madaxtooyada Puntland gaar ahaan kuwa la sheegay inay ka tirsan yihiin unugta socotada ciidanka ee madaxtooyada kuwaas oo la sheegay inuu taliye u yahay ninna loo ku sheegay Beef Buff waxaan markaa ku sugnayn garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed xilligaas waxa ka dhoofayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ciidamada garoonka runtii weyn yaqaaneen mudana waa ka shaqeynay waxa isku dayeen in ciidamadan la hadlaan balse way ka diideen oo waxay yiraahdeen hawsha anaka ayaa wadana markii dambe oo ra'iisul wasaaruhu uu duulay oo shaqadeena saan ugu dhaaftay waxa goobta soo gaaray gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur wuxuu isku dayay in askarta wax ka weydiiyo sababta ay noo joojiyeen oo shaqadeena nagu dhaafsiyeen gudoomiyahana waxay ku yiraahdeen meeshaan anaka xilligan joogna waxaan isku daynay inaan u tagno taliyaha ciidamada watay oo ku sheegay Beef Buff saareeyada ku sheegay taliyuhu asagoo gaariga saaran buu noo soo degtay markaan arinta u sharaxnayna wuxuu naga dhaaqo wuxuu nagu yiri waxa sameyn kartaan sameeya ciidanka maanta tacadiga noo geystayna waa shakhsiyaad la garanayo taliyahana markaa u tilmaamay ama raggii askarta waa ku geeyna wuxuu yiri wax arinta ay ka gali kar ma ahan waxa rabtaana sameeya marka arintaas waxay tahay arin aad loo leeyahay oo laga sii naxaba gudoomiyaha gobolka Mudugna wuu la shaqeeyay wuu naga raaligeliyay laakiin asagoo raaligelintiisu waa raaligelin gobol waana ka gudoomiyaha anaga howlaheena shaqadeena marnaba caqabad nagu noqomayso askartaas laakiin waxaan baaq u dirnaa waxa weeye madaxda dawladda Puntland ee arinta ka soo joogaan waxa xusubna inaan garan karna xataa raggii waxa sameeyay taasoo markii dambe keentay banaanka hore la geeyo oo dacwadan ku gudbeen ilaa maamulka gobolka gaarsinay kuwaas laftiga dhibaato loo geystay oo ognahay in gudoomiyaha ku-xigeenka arinta aan gaarsinay laftigiisa iridda hore lagu soo kala tuuro leeyahay banaanka laftiga uga joogo boorka runtii waxaan u nimid meeshan aan doonayna waxay tahay dawladda Puntland arinta wax soo noqota in talaabo laga qaado taasoo lagu saleynayo sharciga oo maasantiin Awil Maxamuud Cabdi oo kamid ah mas'uuliyiinta ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay oo aad u foolxun waxa lagu sameeyay wariyaasha isagoona dawladda Puntland sheegay in looga fadhiyay inay sharciga hor keenaan askartaasi geysatay jirdilka runtii waxay ahayd foolxun sababta waxa weeye suxufiyiin aynu oran karno suxufiyiintii gobolka u shaqeynaysay oo saakay oo aanu oran karno ma jirto aqoon dari iyaga la aqoon waayay baa loo garaacay sababta waxaan ognahay shalayto Puntland ay uga hortageen badi halkaas wafdi kala soo jaan qaadeen 12 ka xalay bay shaqeynayeen iyagoo harsan hooyan intalihii askari oo dishibiliin xumadii ku taageero ugu madax salaaxo inta midna ama ay mudneen waxay mudnaayeen in madaxa loo salaaxo in lagu dhiirigeliyo shaqada ay bulshada u hayaan waxaan dawladda Puntland ka doonaynaa askartaas oo aqalka madaxtooyada ka tirsan in la weydiiyo sababta kaleeftay inay jirdilaan wariyaasha waa midda koowaad midda labaad khaladkaas ay geysteen iyo dhibkaas ay geysteenna dawladda jawaab ka bixiso askarigu sharciga kama weyna sharci baa dalkan ka jira dadka la jirdilaan waa muwaadiniin reer Puntland sharciga iyo dastuurka dalka u yaalba wax ka dhisteen meesha ay joogaan iyo meel kasta oo ay doonayaan bay xorriyad uga shaqeysan karaan sababtoo ah waa la yaqaanaa dawlad bay ka tirsan yihiin wasaarad bay ka tirsan yihiin urur saxafiyiin bay ka tirsan yihiin oo MAP bay ka tirsan yihiin intaasi kadib si wada jir ay saxafiyiinta ka howlgala gobolka Mudug
oo cambaarayeen falkaasi ay geysteen ciidamada unugta socdaalka madaxtooyada Puntland iyagoona ururka saxafiyiinta Puntland MAP ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed NUSAJ dowladda Puntland iyo dowladda Soomaaliyeed u diray baaqa inay arrintan ay ka soo jawaabaan ayna wax ka qabtaan maaha markii ugu horeysay ay saxafiyiin shaqadooda gudanayay dhibtan loo geysto hase ahaatee arrintan waxa ay ka dhib badan tahay tacdiyadii hore loo geysan jiray saxafiyiinta sida Cali Nuur Cabdi sida Cali Taatiko raadiyaha iyo TV-ga shacab magaalada Gaalkacyo